karo oo aan ka helayno hogaamiyaha ka soo baxsaday kooxda shabaab Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay daha ka qaadayaan xogo cusub oo xasaasi ah. Wadaadkan ayaa la sheegay in maanta uu la kulmay saraakiil ka tirsan dowladda iyo kuwa ajnabi ah oo ku sugan caasimadda Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu bixiyay xogo muhiim ah. Sheekh Mukhtaar ayaa sheegay in xiriir wanaagsan uu la lahaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay horey ugu wada tirsanaayeen maxkamadihii Islaamiga, waxaana uu sheegay in dhowr jeer wada hadal qadka telefoonka ah uu dhexmaray. Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa sheegay in wada hadalka isaga iyo Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu intiisa badan ku saabsanaa in Mukhtaar Robow uu ka soo baxo kooxda shabaab kuna soo biiro dowladda uu markaasi hogaaminayay Sheekh Shariif, dagaalo badan ay ku furnaayeen. Mukhtaar Robow ayaa sheegay in xilligaasi uu ka dhaga adeegay qorshaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya, balse xilli dambe xaaladda ay ku adkaatay. Isku soo wada duub, Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa kooxda shabaab iyo midowgii maxkamadaha Islaamiga ka ahaa shaqsi muhiim ah, hase ahaatee waxa uu ka doonaa wax badan hogaamiyaasha kooxdaasi.